الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، الله ما هاد إسكاله تبارك وتعالى مروا البفرصد إنو السينية إنو السمينو عباداتك إنو دوينية اللي بانت أنكو قارين الدنيا آخر بشي ذي الحجة sanadka u dambeysay oo acmaashii xajka iyo cibaadaadkii lagu mashquulsanaa ayaan ka soo baxnay. waxaan ku dhex jirnaa tobankii hore ee bisha Muharram, bilaha xurmada leh afarta ah, saddexda isku xigta bishii u dambeysay waa sanadka qamariga ah ama hijriga ah bishii u horeysay waa bishaasi dhinac waa bilihii xurmada lahaa, dhinacna fadiilo gooni abay leedahay nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam. muusimka iyo xilliga ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomadiisa uu kolba acmaal qiimo badan u jidaynayo waa ilaahay iyo naxariistiisa iyo fadligiisa iyo ihsaankiisa iyo doonida adoomadiisa uu khayrka iyo wanaagga la rabo. bishani nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa la weydiiyay: يا رسول الله، صلاتها واجبك أمرك لقد تقو وحي كسو هري صلاتها واجبك صلاة أفضل بدن. نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلاتها بينك لتكذو بينك نحديث صلاة الليل أي أفضل بدن صلاة لتكذو واجبك أمرك لقد تقو. waxaa la yidhi soon la soomo kee ugu fadli badan ramadaan kadib. ila ramadaan iyadu waa bishii waajibka ay soonkeedu. nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam bisha muharram, bisha alla bishiisa muharram. bilaha ilaahi baa wada leh, laakiin waxaa loo yidhi allah bishiisa oo allah loogu idaafeeyey waa sharaf iyo qiimo ay la dheer tahay bilaha kale. حيل وحيالها إلهي با وضع أبوري، لكن وحيالها قاركود مركي إلهي الله إضافيه شرف بي كتوسي سأقول لديري حيالك لو بدن مخلوقاتك كمية. حديثكم حكو عديه بيشن صون كذو إنو كميدي هاي صومنك إلهي الله قلنا وادك وأغفض بدن مركي لغاية مادو بيشن رمضان. ساس تنادي بي في عنتها إلا بطسود. ابن عباس نوحو ليه هاي النبي صلى الله عليه وسلم وحكود ذلك شري بيشن صونك صلوات ربي وسلامه عليه. صونك بيشن محرم فضيلة أوليه هي وأتى النبي قال تلمامي صلى الله عليه وآله وسلم سيجارة وحي شريعة منان قوني أسيسي لبدا بري مالك السقالات مالك التبنات. مالك التبنات ayaa horeeyay xagga jidaynta oo waxa soomi jiray sida saxiixaynka ku sugan quraysh baa soomi jirtay jaahiliyadeedii islaamka ka hor inta nabi maxamed la soo saarin. gaaladii reer quraysheed ee magaalada Makka deganaa maalinka tobnaad ee bisha Muharram way soomi jireen. طبعا siin bay u soo gaadhay, ma yahuuday ka soo gaadhay, ma kirishtankay ka soo gaadhay, nasaarada way soomi jireen. nabiguna markaa uu la joogay ee hore uu la soomi jiray sallallahu alayhi wasallam. markuu nabigu soo hijrooday sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina yimid oo mujtamacii reer Madiina nabigu meesha ka aasaasay sallallahu alayhi wasallam, rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu amray in la soomo. sidaas lagu soomi jiray. xadiid kale oo ibn Abbas laga warinayo saxiixaynka ku yimid wuxuu tilmaamayaa nabigu markuu magaalada Madiina yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay ama la kulmay qoysaskii reer yahuudeed ee magaalada wax ka deganaa oo soomaya maalinka tobnaad ee bisha Muharram Ashura ayagoo soomayo arkay. wuu weydiiyay, wuxuu ku yidhi maxaa u soomaysaan maalinkan, maxaa ku jira? waxay yidhaahdeen maalinkani waa maalin weyn, ومالك إلهي أوبد بادي النبي موسى يرى بني إسرائيل
فرعون يعيد مديسي قوم كيسين إلهي وبدك هلاقوا بابيه مالك كان يعيد يوم عاشوراء طبعا كبش محرم نبي موسى مركي إلهي بدبادية وحي لهذين وصومي مالك شكرا لله استوى إلهي أمهد علينيه وقمهد علينيه بدبادة يقوشا إلهي قارسية تبارك وتعالى أنه نصاصا أصومي النبي ده نبي محمد وحي صلى الله عليه وسلم أنك إذن كمضا موسى وإذن كحقنا مركز النبي صومي ومدنا أمري إني صومان أنك إذن كحقنا لأن أنبياء طريق قوضة وحهياي ما أهدتك تشيتكودي كالليحدي هذا الشيكتين لكن أنبياء أصل كالدين تأسكمت بك أهاي المسلمين نواوض أهاي الله قرآن الكريم كاسويدنا وشيغي دين تلينو تشيدي ودين النبي موسى iyo nabi ciise iyo anbiyadii ul azmiga loo jiday ba inagana leeno jiday saasdaradeed yahuud markay sheegteen nabi ibraahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam allah wuxuu ku yiri inna awla an-nas bi ibraahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina aamanu ibraahim waxa xiga oo cid walba ka mudan nabigan nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam isaga idin ka xiga iyo kuwii rumeeyay iyo dadka nabi maxamed raacsan salawaatu rabbi wasalaam alayhi limaada lianna dariiqi nabi ibraahim iyaga haya amma idinku waad ka leexateen shirki iyo gaalnimaad u leexateen sidaas daraadeed nahnu ahqqu bi muusa minkum muusa annaga idinka xigna idinku sheegad baatihiin annagu laakiin dariiqiisi baanu haynaa nabigu waa amray in la soomo salawaatu rabbi wasalaam alayhi waana soomay ila maalinka laga bilaabo مشروع بين نقطة أمضوا إني مالين كصون كذا لو تدالو أنت آن بشهر رمضان صون كذا لو واجبين مالين كان صون كذا إنه واجب هذا كتصيص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا حديث كسلامة من الأكوع يربيع لوضع بين النبي كورين أيان صحيحين ككويمت وهيليه الرسول صلى الله عليه وسلم مالين كامركي لقاري magaalooyinka tuulooyinka magaalada Madiina ku wareegsan ayuu dad u kala diray dad wargaliya oo iclaam bixiya muxuu yahay iclaam waxay dadka gaarsiinayaan war ninkii waagu u bariyay isagoo oo waxba cuninow soonka dhameystirmaanta ninkii waagu markuu bariyay kadib wax cunayowna maalinka inta laaban cuntadan baha cunin ee soomanow amarkaasuu nabigu bixiyay sallallahu alayhi wasallam leys gaarsiiyay saxaabadu waxay leeyihiin amarka nabigu markuu soo fulay sallallahu alayhi wasallam dadku waa soomeen hatta caruurtii yaryarka ahayd waan soominay bay dhaheen caruurtu markay gaajoodaan way oomaan way ooyaan way bahdaan waxyaabaha yarkay caruurtu ku ciyaaro oo cudbiga iyo suufka ka samaysnaa ayaanu ku maaweelinayno ku ciyaarsiinaynay ilaa gabalku u dhaco yani ilaa heerka caruurta xataa in la soomiyo waan xadiidkay ka qaadanayaan culimada qaar qaba maalinkan soonkeedu inuu waajib ahaa intaan ramadaan laynagu waajibinin markii ramadaan soonkeeda ummadda lagu waajibiyay khiyaar buu noqday markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam marka kadib wuxuu yiri cidii doonto ha soonto cidii doonana ha iska daayo ha afuro yani ama waajibnimadii baa meesha laga saaray oo sunnanimadii bay baaqi ku tahay ama adeegii sunnanimada meesha laga saaray la adkeynayo waa sunna caadi ay noqotay laakiin wali waa mashruuco waa la jiday nabigu sallallahu alayhi wasallam jidayntii uu jiday lagama noqonin waxa se kor laga dulqaaday ummadda adkayntii baa laga dulqaaday ruuxii doonow soon ruuxii doonowna waa iska dayn kartaa maalinkaasi marka waa maalinka tobnaad ee bishan muharram نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس مركو صومي ومدنا أمري إلا الصوم مالك التوبنات عاشوراء أي الصحابة وحينا رسولك إله يوم مالك كان ومال أي يهود وينيسو مالك كان يهود بوينيسا
طبعا waxaa agtooda muqarrar ku ahaa waxaa agtooda sugnaa oo horay u yaqaaneen oo quraanka ka barteen oo sunnada nabiga mutawaatirka ka barteen in gaalada dhaqamadooda la khilaafo su'aashana timid marka rasuulka ilaahay waxaad naleedahay sooma maalinkan yahuud baa weynaysa in la khilaafana asal bay ahayd maxaan sameeynaa markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam haddii sanadka dambe aan nabad ku gaadhno sagaalaadkan soomaynaa sanadkii dambe ma imaanin ilaa nabigu ka geeriyooday sallallahu alayhi wasallam intaan la gaadhin baa nabiga tiisii ku timid salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabigu marka waa go'aansaday haddii sanad dambe yimaado si uu u khilaafo yahuuda u khilaafo inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam sagaalaadka soomo macnuhu ma sagaalaadka kaliya inuu ku gaabsadaa mise macnuhu waxa way sagaalaadka iyo tobnaadkaba inuu isku daro caashura iyo taasuca isla soomo intaba culimadu waa dhaheen waxa loo badan yahay in macnaha uu ka wado nabigu sallallahu alayhi wasallam sagaalaadkana waan soomi tobnaadkana waan soomi markaasi aan u khilaafo ku kaliyeelida soonka lagu kaliyeelayo maalinka tobnaad sidaas marka fiican maadaama nabigeenu go'aansaday jeclaystay laakiin uu gaari waayay ummadiisu u jideynaya nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka sida fiican sagaalaadkana in la soomo tobnaadkana la soomo haddii tobnaadku ka tago waxaan u jeedaa haddii sagaalaadku ku dhaafo sida fiican waxa weeye inaad koow iyo tobnaadka la soonto tobnaadka وانا معناها كأصحي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث مرفوع كسو أروري لكن هو ضعيف لكن سنة صحيحة عبد الله بن عباس وحا كغسوغان إنو يري مالك التبناد أما مالك كهر يلا الصومة أما مالك كدن بي يلا الصومة بمعنى هدي سقالات كوكولافو التبناد كي يكوي تبناد كصوم ساستردد بع علماء وحي لهدان والصدح مرتبة دهان دتك السومية مرتبة أوقفي عني وسجالاتك يطبناتك إن لصومه مرتبة حكمة تانا وحويان وطبناتك يكوي طبناتك إن لصومه مرتبة الصدحات بنان لكن لقفي عني وحوي طبناتك كليه إنه الروح الصوم وعاشوراء كليه صوم مالك صوم كذا iyadoo bishaasi soonkeedu fadliga badan yahay soonka ugu fadli badan yahay bacda ramadaan iyadoo kamida ya hadana nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu leeyahay fi hadith abi qatada inda muslim wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka tobnaad soomideeda ama soonkeeda ilaahay waxaan kaga rajaynayaa inuu ku dhaafo sanadkii tagay dambigiisa maalinka sanadkii ka horeeyay wixii dambiga dhacay inuu ilaahay ku dhaafaan rajaynaya oon ajir kaga doonaya oon kaga dalbayaa buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka ajir weyn baa ku jira ilaahayna tabaaraka wa tacaala kuma adka hal maalin soonkeeda inuu ilaahay dambiyada ku dhaafo laysa dalika ala allah biaziz ilaahay kuma adka bal nabigeena waxa ka sugan maalin soonkood hal maalin oo adoonku soomay يو إلهي وجهي سنارت كجفوجيا أنت أقول حيث مشرق يا مغرب هل مالي صوم كده أو إلهي جدك يسوق صوم مركا إلهي فضلك يسوي الله تبارك وتعالى لما ويديه ما حد ساوي شيء لا يسأل عما يفعل لما ويديه عمل كان يركع ما حد أشرك أنت عليك وقررت تبتي سر إلهي أطالله وأنا فضل إلهي أدومدي سأقول تفضل تبارك وتعالى وأنا متك كان يا حسنة إيا وناك مركان سميني طاعة ويران تبنقر إلا ينول الله فله 10 أمثالها مركان دنبي قال لنا حال مركري إلا ينول حريقه سيكستو دنبي قاسي أويه لما الله بملئ ذلك فضل الله إلهي نحريستي لأن رحمته غلبت غضبه إلهي نحريستي سمر والبوي كتم بدنتها وين كجود وين تعرديسي عذاب كيس أدومدي سنة الله وحول جعل يهي خيرك يا وناجا
mid uu fakaday oo fallaagobay oo la kari waayay oo cararay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu naxariistiisa ka cararay mooyaane adoomada intooda kale ilaahay waa u naxariisanaya naxariistiisana waasica tabaaraka wa tacaala sidaas daraadeed ayaa rasuulkeenu inoo jideynaya taacaadka iyo khayraadka iyo wanaaga mar walbood fursad u hesho inaad badsato si darajaadkaaga ugu yaraan jannada u bataan عذابك إلهي عدد سنة أدوك بدباده صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا أرحم الراحمين اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم ولا تسلط عليهم أعداءك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمهم وأيدهم بتأييدك واجمع كلمتهم على الحق وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك